imise macallin oo annaga naga mid ah arday intay garaaceen gacanta u taagay markuu ku gooyay baa meel aadan jeclayn isaga dhufatay markaas banaanka u baxday adoo ul baan doonay ul ma doonayse meel laaba xanuun kula laabanta meel laaba ba xanuun kula jirta warba waxaas ma saa u waday hadda waad iska dhigaysaa wax dilaaya adaa dhibana waa nagu dhacdaa soo ma saas hadda iskoolada aan ardayda la dalin waa jiraan kuwa la garaacana waa jiraan kuwa aan la garaacin waa jiraan ana intaba waa aqaanaa wali waxaan aqaanaa kuwa aan la garaacin oo ka fiican kuwa kale dugsiyada qaar waaga hore waxa jiray magaalada ka jira dugsiyo qaarkood oo qofka haduu xaleeyo waxa lagu qaadayaa war awsan jeclaanin ala oranaya qaalna waa la duwaya kuwa markii qofka warkaas waxa lagu qaado hadal oo maartay nashiido oo lagu caayinaya la qaadaya asaga dhan waa iska ooyinaya kana maxaa nashiida waliga nashiida waa shamsi wariirigay xamatana waa qofka waa iska gaheeroobiya ilma yar cunug yaraan aqaanay oo dhagax tuur badan oo aad dhagax tuura habeen u sheekeeyay waxaan ku eri iyo koox kala darisahayn waxaan ku eri waxba uga sheekeeyay markii waxaan eri wiil baa waxa dhacday ilma quraan dugsi dhiganay soo dhagax u tuura oo ilma dugsi quraan ku jira dhagax ku tuuray markaas cunug yar oo bismillaah law afka u galiyay cunuga gacanta ilaahayo kiisa yeelay kii gacmaha soo tuuray dhagaxa gacmihii baa laabmay isagoo fadhiya mogta maxaa ka macnaa kula lugta lagu tuurayay waa harawdi ul iyo agooy waa hareed ul si loogu wada hore hada asagaaba gacma lug iskoolada qaar waxaan ku iri macallimiintiina wax ma garaacana macallinkii ul qaata shaqadu ka tagay hadda hadii la yiraahdo wax garaacid ma deyn karnee qofkii macallinkii wax dila bishii inta laga jaro xoogaa waa naga fowdaanay baash waa hada isku waafaqdaan warqada la wareejinaya waana saxiixeedna ya baash si usoo yaraato meeqa ugu talagashay bishaan adiga $50 dil adiga xisaabtaad meel dhigo adiga meeqa ugu talagashay 20 ugu talagalay oo dil qof yeeli kara ma jiro nafta bini aadamku waa bakhiil haddii hadda qalad aad samayso atara markasto oo qalad aan sameeyo waa inaan wax sadaqaystaa qalad meega dhacay wax sadaqee naftu qaladka joojinay ma rabto sadaqada qaladka iska deynaysa sadaqa ma rabto shaydaanka xataa wuxuu leeyahay sadaqada ka sii weyntii dabinaysa may inta sadaqa bixin lahaa marka macallimiinta usha wata qaar waxay leeyihiin waxa wadanaa waa cabsiin oo wax kale lagu cabsado ma la waayo cabsiin lama hadal ma ilmuhu korna hay leeyihiin kala naxda ma laha masaxba kuwa aan arkay oo lagu tababaray oo ulna aqoon oo wax bartay oo xataa jaamacadaha yimid ay jooga magaalada iskool ku yaalo waa lama garaaco waxna waa bartaan waana ka fiican arda kale sidee looga hortagi karaa qodobadaas waxa ugu horeeya ixtiraam ardagaaga asna ku ixtiraamaya ixtiraam wataan lahayn ilmaha qaarta ka dhaca u sabar u dhimri u dulqaado ixtiraam ku leeyahay arday waxa ula hadlaya wari istaagadi adi istaagadi war adiga kula hadlaya istaag wuxuu ku dhigi doonaa waxaad inuu ku dhaho macallin ustaad al-aziz yes teacher professor marabno asna qofka ula hadlayna ma soconayso إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون صحبا markaan rabnaa anaga ka beegano waa doctor iyo ustaad iyo professor iyo waxa sanna marka ayagana waxaan ku dhahaynaa miskiinis waa beegi oo kala waa haddii qofku beeganayo buuxsanaya marka waa qola waartay dadka beega boobsiye
say koombada u wadaan ay koombada gedinayaan gadaal lagu wadaa koombada gadaal marka waa safar alla ninkii siray ninkii saqiira gowracay sidii ay lahaayeen waxba la sugayaa safar alle ninkii siray iyo ninkii saqiira gowracay sida kitaabada lagu sheegi jiray sidii ay lahaayeen sidii la sheegi jiray waxba la sugayaa marka anaga ilmo yarana sugaysa ilmo yarana fadhiyo aan ixtiraamna aan barno si hadhow qof u ixtiraamo hadaa yaraanta aan ku barno ixtiraam san oo ixtiraamaya kun caadilan garsoore noqof garsoore fiican oo qofna ha u iilan qofna fasala soo gashay sad magaca sahra fasala soo galnaa anoo ku cusub fasalkan wadaan aqaanaa magaceeda fasalka maalinta soo galay waa cusub idinku cusub ah iba taqaanaan ina iskiin baran raba marka aan waxa la yiraahdaa magaceega Cabdirasaaq saas sahra waa aqaanay adi magaca sahra waa aqaanay ma dhihino sahra waa isii markii hore sahra imtixaanka 100 ay keentay laakiin awal isii qaaneen bas ma aha markii horeba dadka xataa taqaan xataa shibkade si caam ah weydii si guud weydii maalinta koowaadna waa maalinta la isqiimeeyo maalinta koowaad waa maalinta la isqiimeeyo ardaygu ku fiirinaya waxa tahay wax kale macallimiinta kulmada fiirsan 9 macallin meel ku kulanta waxay ka sheekaysteen maalinta koowaad maxaan sameeynaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxa ardayga in kalsooni lagu beero iyo ardayga in loo sharxo waxa uu baranayo waxa ay u taraan kalsooni lagu beero oo macallinkiisu isjeclaysiiyo iyo ardaygaasi waxa uu baran doono faa'iideeda in loo sheego oo muuji inaad ihtimaam siinayso horumarkooda waxbarasho ihtimaam inaad dareynayso inay wax bartaan ay ka go'an tahay si qisooyin iyo sheekooyin dadka guuleystay ah iyo sida ay ka go'an tahay inay u jeceshay inaad guuleystaan qofkaas wuxuu ku leeyahay wallahi macallinkaas wanaag wala rabaa laakiin casharka iska bixi kana dhaqaaji tagoog maruqa kala bax libna ha uga hayn waxay taraysamaan ardadeeni oo aan rabnay inaan bedelno oo aan leeyahay dadka mustaqbalka tihiin hada mustaqbalka anaga laga rabo inuu saaray qaarkood ma iloobayaan kuma ilooba maalin dib u ku dhacay maalin hadda waxyaalaha marmar dhaca ardayda marka maalintaas wax dhaca alla qaybsato baarta dibka kala qayb qaadato fasallo aan wax u dhigi jiray ayaa markii ardayda soo fariisteen oo loo bilaabay computer waxa loo dhigay baan waxa weydiiyay meeqa qof ayaa computer la'aan oo computer haysan ilaa 3 arday waxay tiri wax computer ma haysano mana gadan karno waana muhiim computer haye waxaan ila ardaydaas computer aan gadan rabnaa si loo gadaya aan ka fakarno si aan computer u gadi lahayn ardaydu waxay dhaheen lacag isku qorqoreen waxay dhaheen intaas boqol ka dhimanay ku daradna anna waa ku dareentay ardayda computer ay gateen hadda jaamacadda ay macallimiin ka yihiin hadda dadkaas soo qalinjabiyeen ay jaamacadda ay macallin ka yihiin waxay og yihiin ardaydu waxay u qabanayaan iyo wanaagga ardaydu u hayaan laakiin haddii marka hore dhahno maxaa hebel iga galay aniga inay ga bilaabtaa wanaagga inuu maar hatta haddaan qof isqabanno oon qof dirirno buundada aniga asaga inoo dhaxaysa ma jaraya buundada noo dhaxaysa haddii waadi webi u wara meesha buundada ha jarin inaa soo maray inta laga yaabo hadhow marka ardayda dhaqaale ixtiraam kula dhaqan maadadaada iska diyaarinta maadada waxay u baahan tahay u malaynayaa macallinka buugti in ka badan oo soo akhriyo cashar ka badan soo akhriyo su'aalaha ay ka imaan karaan raadiyo inta nooc ay noqon karta ka soo jawaabo maraajic kale iyo referensiyo kale soo xigto markaas macallinkaas waxa uu yaqaanaa maadadu waa kay adag laakiin absad xisaab yar science yar shay yar haddii ardaydeena ay garan waayaan ama macallinka u garan waayo waa nagu ceebay noqonaysaa macallinka waxa iska basiida marmarka qaarkood macallimiinta aan iskala kaftamaya waxaan qoraa su'aalo yar yar walahi su'aalaha yaa ka jawaabay anaga kaliya isla nahay hadda arday u dhigi lahayn qof marka si uga jawaabaya
annaga waxa aan rabnaa casharka diyaarina waxa weeye cashar wax ka tara noloshooda, cashar wax ka bedela noloshooda, dhaqankooda, dadnimadooda, ihtimaamka ay leeyihiin, xisaab haday suuq ka bedesha, science haday suuq wax ka bedela. arday aan u dhignaa science aan u dhignaa, macalinka loo soo cunaya, looskii qolof ka sii fiiqaya, science-na waa dhigaya qolofkii ku yaalay oo galay digirta baan fiiqno. gurigeeni ardayda u dhigeena, gurigeeni galaydi taale waa la tumayaa, ha la tuma ma u baahan tahay, qolof waa loo baahan yahay, saarane qubka saaran. galay aan beerno qolof aan lahayn maaragtay bunsho iyo mid bunsho leh, tee soo baxaysa bunsho laha soo baxaysa. hadda marka qofka hadii la yidhaahdo waxay nala tahayba badownimo in wax bunsho la cuno. qaarkood daawayso oo bunshaha maxaa cuni weyseen, may xoolaha la siiyaaye say u caana bataan oo ma cabti cunta aad waa caana badatid, maxaa diiday ma caana badatid. sayniska marka la fiiriyo, sayniska hereditiga hidaha, rag caana badan baa jira soo ma jiraan, soo rag caana badan jira soo ma jiro. dibi caana badan ma jiraa oo loo raadinayo, la leeyahay saca halkaa waxa ku jira loodas dibigaas oo sac caana badan ma dhalay, asaga marka ma muuqanayse dhadiga dambe bay ka muuqanaysaa. waxay u baahan tahay waxbarashadeena inay madbakheena jikada wax ka bedesho. laakiin maalin kasta qaadata baradhada waa fiiqaysaa, fag baradhada la fiiqayaa, madaxa maxay baradho galabsatay oo madaxa looga jaraya, waa la fiiqay. nin baa wuxuu leeyahay TB lafaha uga dhacday, laftan dheer uga dhacday, meel kasta la geeyay wala Mareykan iyo waa hore waa laga soo daalay, anoo meel iska joogo iska cunaya rooti qalalan, nin oday arkay maxaa kugu dhacay saasa dhacday oo cuntana nafaqa la ma cunti biiri. waa maxay khudaar ii sheeg walaha badan, fruitka khudaar badan, khudaartan bilaabay waa soo fiicnaatay kula. ninkaas markii uu caafimaaday wuxuu bartay cilmiga quudinta iyo nutritionka, caalamka asaga u haysan jiray quudinta. wuxuu qoray buug, waxaan arkay buugga asagoo af carabi ku aqoran oo la yiraahdo al-ghadaa yasnacu al-mu'jizaat, ana isbedelka maartay cuntada ay sameynayso.